assalaamu calaykum. ciid wanaagsan meel walba aad adduunka ka joogtaan. sanadkan sanadkiisa ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. ubadka waxaa loo dhalaa in indhaha lagu dogsado, isla markaana marka aad gabowdo uu ku caawiyo oo uu noqdo mid ku xanaaneeya sidii aad adiguba u soo xanaanay jirtay waagii uu yaraa. laakiin ka waran haddii lagaa xado ama lagaa afduubto halkii canug ee aad lahayd oo uu sharciga dalkaaguna kuu ogoleen inaad halka badan dhasho. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qisada haweeney u dhalatay waddanka Shiinaha ee laga xaday halkii wiil ee ay ifka ka haysatay. sharciga dalkeeduna uu dhigayo in qoysasku aysan yeelan karin wax ka badan hal canug, ama si kale haddii aan u dhigno in qoys walba uu yeelan karo hal canug oo qura. Li Jinji iyo ninkeeda Mao Zedong waxa ay haysteen hal wiil, balse nasiib darro waxaa 17 Oktoobar sanadkii 1988 la afduubtay ama la dafay inankoodii yaraa ee 2 jirka ahaa ee Mao Yin, iyadoo xilligii falkaasi u dhacayay uu wiilka yar weheliyey aabihiis oo ka soo celiyey dugsigii lagu xanaaneynayay, waxayna ku sii jeedeen gurigoodii. afduubkaas ayaa dhacay ilbiriqsiyo gudaheed markii uu aabihii waa Mao Zedong uu haraaday oo uu isku dayay inuu hotel ku yaala gobolka Shanxi uu biyo ka cabo. hase yeeshee si lama filaan ah ayaa wiilkiisii yaraa loo dafay sanadkii 1988. markii ay intaasi dhacday waxaa waalidiintii Mao Yin ay go'aansadeen inay doonaan oo ay raadiyaan inankoodii, iyagoo ka raadinayay guud ahaan waddanka Shiinaha. waxaana dhacday in hooyadii wiilkeeda la xaday ee Li Jinji ay isaga tagtay shaqadeedii, iyadoo bilowday inay ku wareegto magaalooyinka iyo tuulooyinka gobollada waddanka Shiinaha, balse ay ugu rumowdo riyadeeda inay mar kale dib u hesho wiilkeedii. ma aysan quusan haweeneydan adag ee Li Jinji, waxaana 32 sannadood ay qaybinaysay ama ay qaybisay 100,000 oo warqado iyo sawirro baafin ah oo ay ku raadinaysay wiilkeeda, kuwaas oo ay ku dhejisay dariiqyada iyo goobaha ganacsiga waddanka Shiinaha. intii haweeneydan ay ku guda jirtay doondoonka inankeeda ayaa waxa ay ku biirtay koox samafalayaal ah oo lagu magacaabo Baobi Khuitia Baby Come Back Home, canugeygiiyo guriga ku soo noqo, kuwaas oo ururiya macluumaadka carruurta maqan kadibna u gudbiya booliska, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua. waxaa la yaab leh in muddadii dheereed ee ay Li Jinji waday raadinta wiilkeeda ay caawisay qoysas kale oo ay carruur ka maqnaayeen markii ay heshay macluumaadka 29 carruur ah oo ay kaga shakisay inankeedii, kuwaas oo markii dambe la ogaaday inay ahaayeen carruur kale oo iyagana la soo afduubtay oo kadibna dib loogu celiyey waalidiintii dhashay. ilaa 300 oo macluumaad qaldan ah ayaa la soo gaarsiiyey Mama Jinji oo la leeyahay waxaan haynaa canug u eg ama shabaha wiilkaaga ee kaalay gobol hebel. markii ay tagtana waxaa is yeelan waaya ilmihii loogu yeeray inay soo eegto iyo tilmaamaha wiilkeedii maqnaa. bal ka waran haddii 300 oo jeer aad ku hungoodid inaad soo hesho wiilkaagii maqnaa. waxaa hubaal ah in dad badan ay niyad jabi lahaayeen oo ay gebi ahaanba iska joojin lahaayeen hawsha raadinta inanka maqan. hay-adda Baobi Khuitia waxa ay sheegaysaa in carruurta maqan ama la afduubtay ay badankoodu yihiin wiilal, kuwaas oo dadka carruurta xadaa ay ka iibiyaan qoysas aan wax ubad ah dhalin, waxaana kadib ay u bixiyaan magacyo cusub iyagoo ka dhigta sida carruur ay dhaleen oo kale. badanaa dadka carruurtooda waaya wax caawimaad dhaqaale ah kama helaan booliska Shiinaha, waxaana si iskood ah ay hantidooda ugu bixiyaan sidii ay u raadsan lahaayeen ilmaha ka maqan, iyadoo qaarkoodna ay soo amaahdaan lacago dheeri ah si ay u doonaan ubadka ka maqan. barnaamijka carruurka ganacsiga ayaa ah mid ku badan waddanka Shiinaha, iyadoo carruurta wiilasha ahna lagu kala iibsado qiimo ka qaalisan hablaha. waxaa kale oo warbixin hadda ka hor ay qortay wakaaladda Associated Press ay tilmaamaysaa in gabdhaha yaryar ee la xado loo isticmaalo in loo adeegsado shaqaale ahaan ama loo guuriyo inamada qoysas wiilashooda guur u waayey. cadaadis fara badan kadib waxaa wasaaradda amniga guud ee Shiinaha ay 2009 dhistay xarun weyn oo lagu kaydiyo macluumaadka DNA-da si la isugu dayo in sare loogu qaado ololaha lagu doonayo carruurta maqan ee guud ahaan Shiinaha oo tiradoodu ay ka badan tahay 50,000 oo carruur ah, kuwaas oo tan iyo 1978 ay qoysasku baafinayeen carruur laga qaatay. tan iyo 2015 ugu yaraan 3,000 oo carruur ah ayaa dib loogu soo celiyey qoysaskoodii kadib markii lagu soo helay tijaabada DNA-da ee ay dowladda Shiinaha hirgelisay. xukuumadda Shiinaha
waxaa kale oo ay aasaastay bog gaar ah oo sida Twitterka oo kale u shaqeeya, kaas oo looga soo horjeedo carruurta la afduubto ee kadibna la kala iibsado. waxaana boggaasi online-ka ah ee dhanka internetka ay wasaaradda amniga guud ee Shiinuhu ay ku soo bandhigtaa sawirrada carruurta la la'yahay, iyadoo sawirrada carruurtaasina lagu sii baahiyo sida websaydyada qaabilsan cunto gaarsiinta dadweynaha, xarumaha online-ka ah ee dadku ku wada sheekaystaan, iyo barnaamijyada dukaamaysiga ee laga soo degsado Android-ka iyo Play Store-ka. dhammaadkii 2019 waxaa wasaaraddu ay shaacisay inay ku guulaysatay helidda carruur la weysanaa oo tiradoodu ka badan tahay 4,200 oo ilmood, kuwaas oo lagu wareejiyey qoysaskoodii. waxaana guushaasi lagu gaaray 3 sano gudaheed markii la sameeyey boggan online-ka ah ee carruurta lagu baafiyo sanadkii 2016. warkii ugu farxadda badnaa ayaa booliska Shiinuhu ay soo gaarsiiyeen Li Jinji iyo Mao Zedong, kaasoo ku saabsanaa warbixin ay boolisku heleen oo ku aadan qoys ku nool waqooyiga galbeed ee Shiinaha oo haysta canug ay soo korsadeen, kaas oo markiisii hore ay ku soo iibsadeen $845. baarayaasha Shiinaha ayaa loo gudbiyey sawirka wiilkii yaraa ee Mao Yin, iyagoo sawirkii wiilka yaraana ka sameeyey sawir kale oo looga qiyaas qaadan karo sida uu u ekaan karo marka uu qaangaaro ama uu nin weyn noqdo, si la isugu eego in canuga laga shakisan yahay uu yahay wiilka maqan ee la raadinayo. boolisku waxay isku eegeen muuqaalka wiilkii ay reerku korsadeen oo lagu magacaabo Gu Ningning iyo sawirka wiilka muddada dheer la raadinayay ee Mao Yin. suuradda labadan wiil oo aad isugu eg waxaa kadib ay baarayaashu qaadeen tijaabada DNA-da, hase yeeshee nasiib wanaag sawirradii iyo DNA-diiba waxa ay caddeeyeen in wiilkani yahay kii 32 sannadood ka hor laga afduubtay qoyska Li Jinji iyo Mao Zedong. dadaalkii 32 sannadood socday ee hooyo Li Jinji ayaa guul ku dhammaaday, waxaana ay mar kale dib ula midooday wiilkeedii Mao Yin ee laga afduubtay sanadkii 1988. farxad iyo damaashaad qoyskii muddada fog kala maqnaa ayaa iyagoo oynaya ismarxabeeyey, waxaana haweenaydan soo halgantay ee Li Jinji oo waraysi siisay BBC-da ay sheegtay in tani ay tahay hadiyaddii ugu qaalisaneed ee ay nolosheeda hesho, iyadoo xustay in inkastoo ay wiilkeedii heshay haddana ay sii wadi doonto oo aysan ka fariisan doonin howlaha lagu raadinayo carruurta maqan ama la afduubtay. waxaan u mahad celinayaa kumanaankii kun ee ka qayb qaatay inaan dib u helo wiilkii iga maqnaa 32 sannadood. ma rumaysan karo in anigoo caawiyey in dib loo helo 29 carruur ah aan markanna helay wiilkaygii, ayay tiri Li Jinji. sababaha kordhiyey carruur afduubka Shiinaha ayaa waxa ay tahay iyadoo dastuurka dalkaasi uu sharciyeeyey horraantii 1980 in qoys walba uu yeelan karo hal canug oo qura, si loo dhimo tirada dadka Shiinaha oo markaasi aad u kordhaysay, dalkana horumar loo gaarsiiyo. isku soo wada duubo, waxaa qisada hooyadan Li Jinji aan ka faa'iidaysan karnaa qiimaha uu dulqaadku leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inuusan qofku marnaba ka quusan doondoonka waxa qaaliga ah ee ka maqan, xitaa haddii 300 oo jeer sida haweenaydaasi oo kale aad ku guuldaraysato inaad soo hesho wiilkaagii kaa maqnaa, kaasoo xaqiiqdii haddii ay gacmaha ka laaban lahayd aysan u suurtogeli lahayn in 32 sannadood kadib ay dib u hesho wiilkeedii. daruuraha